وهبة إيه ميت كميدو هويوين كأي وحكو برتو سوق الحديثة وميت كميدا بقولال دمر oo 6 bilood ee ugu dambeeyay ay bareysay qoraalka afka Soomaaliga iyo xisaabta saddex sanadood oo ay hawshan waday waxa ay hore u afilxisay 180 haweenka ganacsiyada yar yar suuqa Hargeysa ku haysta qoysaska Soomaalida intooda ugu badan hooyooyinkooda ayaa qoodiya laakiin shaqooyinka ay hayaan waa kuwan qiyaas ahaan hantida ay hooyadan ay ku iibinayso halkan haddii la isku wada daro kama badna $20 intaas ayay ka soo saartaa nolosha iyo waxbarashada ubadkeeda haba iska jeeb yaraatay ee waxa ay ka raysatay khasaare ay kala kulmi jirtay ka hor intii aanay macallimadani u iman waxa weeyaan inanta ahibo ilaahay baa noo keenay maalin wanaagsan iyadoo iska soconaysa kan naga soo gashay wax ma baranaysaan baa tiri wax badan baa ma yiri anigu haa baan yiri maxaad ku doonaysaa baa tiri waxaan qof weyn anigoo ah oo malcaamad iyo quraan ina barta mooyaa kale ina barta ahayn haddana shaqada aan shaqaysanayna ee igu kaliftay shilinkii baan lagala tagay saadka ma aanan aqoon ma aanan akhriyay ma aanan qoranayn lama aanan haday qofkii intan bilaadan eegaganano noo eega ayuu naga dhamcay qofka naga libdhaay lacagta halkaas ku tagays deeymka lagama tago lagama dhaqaaqo waanu baranay teenkii waan la haraynaa qoraalkii waan la haraynaa tuugi waa iska ilaalinaynaa waa diranaynaa waa eeganaynaa deynanta Allah barakeeyaan leenahay faa'iido badan baan ku helay inanta hiba Allah barakeeyaan leenahay waxay doonaysan Allah siiyaan leenahay dad badan oo dhali waa jiraan ku wada baan idin leenahay ducaan idin ku darayna waalidkii iyo hooyooyinkii baanu nahay eeyooyinkii baanu nahay dad yar ma dhihin de markii horena arrinta u shaqeeyay baanu lahayn maanaan dad u yeedho maanaan garanahayn imaka ilaahay noo soo dir aad ayay ugu faraxsan yihiin macallimadooda waanay u ducaynayaan waxa sanad walba sii kordha dumarka suuqa ee raba inay aqoonta gabadhan yar ay ka faa'iideystaan waxay si hibo xasuusataa markii ugu horeysay ee ay arrintan ula timi oo kuwa badan ay iska diideen maalintii ugu horeysay suuqa waa heen baan ka bilaabay waxaan sii qaatay qalin iyo buug hooyinkii baan u tagay wax ku dhaxan doonaya inaan wax idin baro wax lacag ma doonaya inaan kaga qaado laakiin inaad waxaan doonayaa dee ganacsigiina aad ku kaabtaan aan idin indho furo insha Allah hooyinkii qaar ay aqbalay qaar aan aqbalinba way lahaayeen qaar soo dhaweeyay iyo qaar aan soo dhaweynba way lahaayeen intii soo dhaweysay tiri diyaar baan inaan wax barano ganacsigayga ama lacagayga saabana dhibayna waxaan markaa dukaan yar uga soo qaaday kartoon buugaaga qalimaantoodii waan u geeyay hooyo walba qalinkeedii iyo buugeedii baan u dul dhigay waa duhur cadeedu ay kulushahay hibase dhib kuma hayso marka ay mid darsiga u dhamaysaba tu kale ay barteeda ugu tagaysaa 5 saacadood ay maalin kastana halkan ku qaadataa aadana barta macluumaadka qaaliga hib hadayna noo imanayna waxna barin suuq ma naajo Safiya Cabdi Umar waa hooyo kale oo iira cashar bixinta hibo markan ay soo gaadhay waxa ay dareensan tahay intii ay xisaabta barateen dhaqaalaheedii durba wax weyn iska bedeleen marka hore intaas ay ahayd ma fahmaysa inta yar bay inta haday ahaydna waxaan ku dhahday markii hore aanan waxba ogeynan aanan waxaan ku dhahday saadkii waxaan kala garanayn waxaan ka macaashay wax kale ma aanan garanayn inta baan waayay jiriba oo wali way biligu yeelin jiriba ma fahamta laakiin kaana inta yar haya oo inta yar isku daray ayaan marka maxaan ku dhahday saadkii iyo wixii wax walba fahmaya wixii aan ka helay haday 10 kun noqoto 5 kun noqoto waan fahmay aad baan fahmaya markii hore ma baan haynba markay iga kala raacday iga kala duushay faa'iido khatar ma garanay ما فاهمين mid kamida ayay noqotay oo hibo iyo hooyooyinkan waxa ka dhex beermay saaxiibtinimo iyo jacayl waayo waa horaal aan jilniin ahayn ujeeddo kalena aanay ugu hoosayn tabaruceeda
taas ayaanay iyaguna u ogyihiin. hooyooyinkii kama maqnaan kara xataa waayo dad aan saaxiibnay dad aan la qabsaday dad aan inta badan ku soo dhex jiro bay noqdeen marka maalin haddaan ka maqdo waxaan malaa sanad baad ka maqnayd oo anigoo suuqa joogun baan is arkaya waxaan la joogaa waxaan soo galaa adigu saacadaha 10 ama 9 ilaa iyo casar laga gaadhayo suuqan ku dhex jira xilligaas oo kale ayaan imaadaa inta saacadaha koobane ilaa aanu ilaa 9 ilaa salaada casar waan la joogaa wax baan u dhigaa wax dhigashada kadib maaha muhiimadu inaan wax u sii dhigo kali hooyo walba aan ag fadhiistaayo de hooyo walba problem baa ku furan hawlo kale haysta hooyinka waan la sheekaysanaya aan ag fadhiisanaya mid walba waqti bay kaga dhacaya ubad bay wax barayaan jaamacada ka soo saarayaan oo iskuul ka soo saarayaan deynaan aniguna taa aan ku yeeshay yacni sabab u noqdo hibe laftigeedu waa ardayadoo marka halkan ay ka tagto waxa ay aadaa jaamacadda farbadnaanta haweenka baahida u qaba in wax la baro iyo muhiimadda ay leedahay awgeed waxa ay hibo ay ku qanacsan laba kamid ah saaxiibadeed inay hooyooyinkan wax la baraan waxaana ay imika haysataa laba hablood oo garab uga ah hawshaasi tabaruc ah ee ay muddada soo waday Sidiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa